Rina wuxuu 13 jir isagoo ah waayay aabihii wuxuuna la wareegay mas'uuliyadda reerka iyo tan maamulka beeraha uu aabihii lahaa balse caqabada jirta waxay tahay Rina waajibka saaran ma ahan kaliya u soo dhicinta rootiga reerkiisa ee waa sidoo kale inuu ka badbaado isku day waliba ee waxyeeleen kara beeraha uu aabihii ka tagay magaaladuna ma ahan mid naxariis ka jirto beeralayda magaaladan dhul balaarsigoodu waa sidii boqortooyada oo kale sidoo kalena waxay dhammaantood hoos tagaan Cosa Nostra oo ah maafiyada ka talisa magaalada Toto halgankan adag ee nolosha kadib geerida aabihii waxay u carbisay inuu noqdo wiil dhalinyaro ah oo ay nolosha wajigii ugu xumaa ee taagdarrida tusisay oo si aad ugu dhex badbaado bulshadaas waa inaad laba arrimood isku darsataa mid waa inaad marka koowaad afkaada ka adkaato waa tan labaad waa inaad ugu yaraan iska bixisaa baadda ay maafiyada ka qaado cid waliba oo ijaabkeeda wax ku tabayso sanadihii silaca badnaa Toto waxay saanad ahaan u siiyeen saaxiibkii nolol wadaagga la noqday markii dambe ee Bernardo Provenzano kaasoo isaguna door weyn ku lahaa Cosa Nostradii Corleone Bernardo iyo aabihii waa xoogsato u shaqo taga beeraha dadka kale ay leeyihiin sidaas darteed Toto iyo Zubino ama Bernardo oo isku da' ah ayay daruufta nololeed kulmisay oo sidaas ay saaxiibo ku noqdeen Rina kadib muddo markii uu beeralay ahaa wuxuu hawsha beerfalashadii intii ugu badneed ku wareejiyay wiilashii isaga ka yaraa wuxuuna markan bilaabay inuu u bagaax tago Via Garibaldi oo ah faras magaalaha Corleone wiilkan dhalinyarada ah wuxuu magaalada u soo galay inuu indhayn ku sameeyo waxa meesha ka socdo sidoo kalena isi soo xaadirinta joogtada ah ee faras magaalada waxay u fududeysay inay joogitaankiisa dareemaan rag awood ku lahaa magaalada macnaha madaxweyntii maafiyada Cosa Nostra maadaama uu Toto ahaa wiil yar oo afgaaban oo aan hadalkiisu badnayn waxay taasi u carbisay inuu wax badan ka barto qiimaha ay leedahay inaad maalin waliba xaadir ahaato heegan ku jirto oo sidoo kalena aad ahaato qof dahsoon dhammaan sifooyinkaas waa kuwa ugu qoran maafiyada qad dahabi ah oo haddii aad tahay qof Rina oo kale ah waxaad tahay dooqa koowaad balse haddii ay ogaan lahaayeen qofka ay u gogol xaarayaan waxay ka fiirsan lahaayeen kumanaan jeer malmihiisii faras magaalada Corleone waxay isbarteen dad badan oo Cosa Nostra ka tirsan balse kan ugu muhiimsan wuxuu ahaa Luciano Leccio oo ah nin ku hoos jira dalladda Dr. Michele Navarra oo markan ahaa doonkii Corleone Dr. Navarra waa nin ka tirsanaa raggii ka qayb qaatay dagaalkii labaad ee adduunka wuxuu dabayaaqadii sanadii 1948 la wareegay awoodda magaalada oo waa nin ay reer Corleone aad uga heebaystaan dhanka kale Toto maadaama uu saaxiib dhow la noqday Luciano Leccio waxay taasi u fududeysay inuu markan imaado timajaraha ay ku kulmaan jilib culusta maafiyada sida Dr. Navarra Toto saaxiibkiisii caruurnimada ee Bernardo iyo Luciano markan waa murqaha uu adeegsado Dr. Navarra si uu dadka u cabsi geliyo sidoo kalena cidii uu dareemo inay loolan soo gali karaan uu ku aamusiyo raggan dhalinyarada ah waa rag u diyaarsan wax waliba oo suuragal ah sidaas darteed bayna iyaga iyo rag ilma adeero ahaa isqabteen oo isgacan dhaaf kadib maadaama ay hubeysnaayeen Rina iyo saaxiibadiisii Rina wuxuu la soo baxay bastoolad wuxuuna ka riday 12 xabadood isagoo mid ka mid ah raggii dilay Toto waa la soo qabtay waxaana lagu xukumay 12 sano oo xarig ah dilkii uu geystay dartiis xabsigii ahaa 12 sano ma uusan dhameysan oo kaliya 6 sano kadib waa la soo daayay markan Rina waa nin dhiig yacab ah oo waxa magaalada lagu soo dhaweeyay si weyn waliba maafiyada dhexdeeda ka noqday dilaaga aamusan dhanka kale ninkan Luciano ah oo saaxiibkii Toto ahaa damac weyn ayaa uga jira booska Don Dr. Navarra maadaama uu Navarra markan waayeel yahay hawshana inta ugu badan ay raggan qabtaan waxay bilaabeen amar diido iyo inay si iskood ah shabakado u gaar ah oo ka madax bannaan Navarra dhistaan markii arrinka uu Dr. Navarra ku baraarugayna wuxuu ku qasbanaaday inuu amro in madaxa Luciano miiska loo soo saaro waxa la diyaariyay qorshihii lagu qaarijin lahaa Luciano Leccio oo ah hormuudka ragga uu ka tirsan yahay Toto sidee ayuu u dhacay howlgalkii qorshaysnaa ee ka dhanka ah Leccio Rina iyo saaxiibadiis sidee ayuuna u noqday howlgalkaas bilowga badweyntii dhiigdaadinta la soco qaybta afaraad ee taxanahan oo ah midka ugu xiisaha badan nabadgelyo